kulan wanaagsan dhageystayaal waa isniin 7 bisha Agoosto Afrikada barina saacadu waa 7 subaxnimo oo gow ah qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkana waxa kamid ah maamulka Galmudug oo sheegay in maalmaha soo socda oo bilaaban doono howlgal qorsheysan oo ka dhan ah al-shabaab maalmaha nagu soo aadan ayuu dagaalku bilaabanayaa kadib markii dhamaado madaxweynaha kulama uu la leeyahay odayaasha dhaqanka beelaha iyo waxgaradka ciidamadii afgambiga kula wareegay dalka Niger oo xiray hawada dalkaasi iyagoo sabab uga dhigay qatar uga imaanaysa faragelin shisheeye sida ay sheegeen dooma ay la socdeen dad tahriibayaal ah oo ku degay xeebaha Talyaaniga qaar ayaa dhintay qaarna waa la laayahay waxa kale oo aad maqli doontaan maalinka la bilaabay imaam shaatibiya anoon ilmaha masaajidkan keeni jiray haddana ilmahayga waa ku soo darmaday alxamdulillah marka muhiimadda quraanku uu leeyahay iyo weynanka quraanku uu leeyahay dartii baan uga nimid meeshaas inaan Nairobi uga soo safarro oon ka qayb galo musaabaqada waa tartan quraan oo ay ka qayb galeen dad ka kala yimid meelo kala duwan oo caalamka ka mid ah oo lagu soo gabagabeeyay dalka Mareykanka qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan subaxnimo uu soo saaray Cabdulqaadir Yuusuf Cali anigu Xasan Sheekh Umar ayaan idin la socodsiin doona dhageystayaal waxaan soo ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Foosciid mahadsanid Xasan generaalada la wareegay awoodda dalka Nigeria sheegay in ay xireen hawada dalkaasi ilaa amar dambe iyaga oo ka jawaabaya hanjabaad ku aadan faragelin military oo iyaga ka dhan ah ku dhawaaqista ayaa ku soo beegantay iyadoo uu dhamaaday waqtigii loogu talagalay inay soo celiyaan madaxweynaha la doortay haddii kale ay tallaabo macquul ah qaadi doonaan urur goboleedka galbeedka Afrika ee ECOWAS dowladda Ingiriiska ayaa daha ka rogtay xarun cusub oo cilmi baariseed halkaas oo ay saynisyahanadu ku shaqeynayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen musiibooyinka mustaqbalka waxa ay ku taalaa Bolton Down oo ah saldhig military oo qarsoodi ah oo ku yaala koonfurta galbeed ee England dowladda Kenya ayaa sheegtay inay baaritaan ku sameyn doonto guryaha daryeelka gaarka ah kadib markii baaritaan ay BBC-du sameysay ay ku ogaatay in si arxan daran loola dhaqmo dadka lagu xanaaneeyo xarumahaasi oo ku dhow Nairobi maamulaha xarunta ayaa beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay warbaahinta dowladda Suuriya ayaa sheegtay in gantaal ay Israa'iil ku garaacday meel u dhow magaalada Dimashq uu ku dilay 4 ka mid ah askarta 4 kalena halkaasi lagu dhaawacay Israa'iil waxay si joogto ah u weerartaa goobaha militariga ee Suuriya ee lala xiriiriyo Iran laakiin ma badna inta ay qirato weeraradaasi Elon Musk ayaa sheegay in dagaal qorsheysan oo u dhaxeeya isaga iyo maalqabeenka dhinaca teknoolajiyadda ee Mark Zuckerberg si toos ah looga daawan doono barta Twitter-ka oo haatan loo bixiyay X Mr. Musk waxa uu sheegay in dhammaan lacagaha ka soo baxa dagaalka ay aadi doonaan hay'ad samafal oo loogu talagalay askarta mujaahidiinta ah ugu dambeyn wasaaradda tareenada ee Pakistan ayaa furtay baaritaan ku saabsan shil ka dhacay gobolka Siin oo ay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof axadii shalay saraakiisha ayaa sheegay in ay wadadan ay u muuqatay mid ku haboon in la isticmaalo waxaana ay hubiyeen sheegashada darawalka ee uu ku socday xawaare macquul ah dadka deegaanka ayaa 10 qof oo dhaawac ah oo rakaabka ah u qaaday cisbitaalada ka hor inta ay halkaasi gaareen ciidamada gurmadka degdega ah wararkii caalamka waa naga intaa Xasan aad bay u mahadsantahay Foosciid oo nala socodsiinaysa wararka caalamka ee BBC-da dhageystayaal haatan u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka markale subax wanaagsan dhageystayaal aynu ku bilownay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxa ka socda kulamo u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo halkaasi ku sugan iyo madaxda maamulkaasi waxgaradka iyo qaybaha kale ee bulshada Galmudug waxa kulamadaasi looga hadlaya oo xoogga lagu saaraya howlgallada ka dhanka al-shabaab oo maamulka Galmudug uu sheegay in maalmaha soo socda uu halka ka bilaaban doono haddaba si aynu faahfaahin dheeri ah uga helno arrimahaasi waxaan goordhoweed qadka telefoonka kula xiriirnay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Cali Daahir Ciid oo marka hore aan weydiiyay bal halka waxa ka socda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu soo gaaray dowlad goboleedka Galmudug socdaal ama safar ka duwan safaradii hore ugu gali jiray oo siyaasadaha iyo horumarinta iyo hawlaha ku saabsanaa balse safarkan wuxuu ku saabsan yahay howlgal ka dhan ah khawariijta al-shabaab iyo bartii hogaaminta u fadhiisto
boqolkiiba boqolna uu ka shaqeeyo sidii khawariijta looga saari lahaa guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Galmudug. Waxaan u sameynay soo dhaweyn heerkeedu sareeyo. Soo dhaweyntaas kadibna madaxweynuhu wuxuu bilaabay kulamo uu ku dardargelinayo howlgallada hadda leh ee ka socda guud ahaan Galmudug. Kulamadaasi waxa ugu horeeyay kulan ay qaateen madaxda Galmudug iyo madaxda qaranka ee uu hogaaminayo madaxweynaha federaalka Soomaaliya ee wasiiradiisa iyo taliyaha nabad sugidda. Kulankaasina wuxuu ku soo dhamaaday guul ah iyo isafgarad. Marka qorshuhu goormuu yahay in dagaalku uu bilowdo? Maalmaha nagu soo aadan ayuu dagaalku bilaabanayaa kadib markii dhamaado madaxweynaha kulamo uu la leeyahay odayaasha dhaqanka beelaha iyo waxgaradka dowlad goboleedka Galmudug oo la rabo in ayagana abaabul loo sameeyo ayna ka qayb qaataan kama marna culimada diinka oo ayagana lala kulmayo. Kulamadaasi waa uu waday madaxweynaha shalay ilaa maanta waxaan filayaa maanta ilaa bari ay ku soo dhamaan doonaan. Wixii inta ka dambeeyay howlgalku toos ayuu bilaaban doonaa isagoo wajiyo badan oo ilaa 5 jiho guluf aad u xooggan looga qaadi doono kooxda khawariijta al-shabaab. mudane madaxweyne ku xigeen waxaynu la soconnaa deegaano Galmudug ay ka mid tahay oo Soomaaliya ah dagaalada al-shabaab lagula jiro way ka socdeen qaabkay doonaan ha u socdaan laakiin hadda tegitaanka madaxweynaha muxuu ku soo kordhinayaa dagaaladii horay aad ugula jirteen al-shabaab? waa mahadsantahay imaanshaha madaxweynaha waxay dhiig cusub ku shubaysaa howlgalladii baaxadda lahaa ee ka socday guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Galmudug ee lagu xareeyay degmooyinka badan sida degmada Ceeldheer iyo degmada Xarardheere, degmada Galcad, degmada iyo deegaano badan oo aad u badan xaqiiqdii aase Galmudug ilaa iyo 30 goobood oo ay al-shabaab uga naayeen Galmudug ayaa maanta gacanta ciidamada qaranka ku jira iyo ciidamada Galmudug ee iskaashanaya haday aan lahayn darwiish iyo haday aan lahayn ciidanka gaarka ah. Imaanshaha madaxweynaha waxay nooga dhigan tahay fursad weyn, waxay nooga dhigan tahay dhiig cusub oo lagu siyaadiyay howlgallada. Waxay kor u qaadaysaa moralka ciidamada maadaama barta hogaaminta howlgalka ka dhanka khawariijta maanta uu fadhiyo madaxweynaha saraakiishii wacaayo madaxdii Galmudug uu mataqaanaa shirar kula jiro bulshadii qaybaheeda kala duwan uu dhiirigelinayo. wax weyn ayay Galmudug uga dhigan tahay. wararku waxay sheegayaan in deegaano ka mid ah Galmudug lagu aruurinayo ciidamo laga keenayo deegaanada iyo tuulooyinka ku hareeraysan magaalada Dhuusamareeb iyo magaalooyin kale. ciidamadaasna aanay haysan tababar oo la leeyahay waa dhalinyaro loogu yeeray kaliya in dagaalka ay galaan. marka arrinta ma jirtaa? dagaalka khawariijta lagula jiro wajigiisa cusub ee horseedka u yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar walba waa ka qayb inay bulshadu iska kiciso kooxda al-shabaab. marka ciidanka qaranka iyo ciidanka dowlad goboleedka laga reebo ciidan xoogan oo kacdoon ah oo bulshada ka dhex yimid ayaa dagaalka qayb ka noqonaya. waana ku faraxsanay, waana soo dhaweynayna, waana dhiirigelinayna in bulshadu ay iska dulqaado kooxda al-shabaab. howlgalka shabaab lagu ceebtirayo marka uu soo dhamaado ciidankaas deegaanka waxaa la siin doonaa choice baa la siin doonaa. kii raba inuu ciidamada qaranka ku biiro waa la diiwaangelin doonaa. kii raba inuu ciidamada dowlad goboleedka ee Galmudug ku biiro sida daraawiishta iyo booliska Galmudugba waa la soo dhaweyn doonaa. kii raba ganacsigiisii iyo xoolihiisii iyo inuu ku laabto deegaankiisii ku laabto asagoo xor shaqaysto iyadana waxaa la siin doonaa jaanis baa la siin doonaa. marka wax caqabada oo macawisley aan ka filayna haba yaraatee ma jirto, waana dhiirigelinayna. halka ugu weyn marka ay hadda lagu wajahan yahay oo la rabo in dagaalka uu ka bilowdo waa xagee? ciidanka qaranka iyo ciidanka dowladda Galmudug oo iskaashanaya waxa ay ku wajahan yihiin degmada Ceelbuur iyo degmada Galhareeri oo ku yaal gobolka Galgaduud. sidaas lamid ah deegaanka Bacadweyn, Shabeelow ilaa Caad iyo Camaaro oo dhanka gobolka Mudug. labadaas qaybood ayay u badan yihiin meelaha la rabo in howlgalka laga sameeyo. waxaanan saadaalinaynaa ama filaynaa marka xuduudda ciidamada howlgalkaas ka qayb qaadanayaan fiirino inaysan kooxda al-shabaab aysan u babacdhigi karin ciidamada qaranka iyo ciidamada dowladda Galmudug oo iskaashanaya. kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Cali Daahir Ciid oo qadka telefoonka Gorowed igu waramayay. mas-uuliyiinta dalka Tunisia ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan ay dhinteen 14 qof oo tahriibayaal ahaa kuwaasi oo soo harnaa doomo kala duwan kadib markii doomahaasi ay ku degeen badda 48 saac ee ugu dambeysay. dhanka kalena in ka badan 50 qof ayaa nolol iyo geeri la la'yahay kadib markii doon ay saarnaayeen ay ku qarraqantay xeebaha dalka Talyaaniga. Shukri Siciid oo ah wariyad degan Talyaaniga ayaa wararkii ugu dambeeyay uga warantay wariyaha BBC-da Cabdulqaadir Yuusuf Cali.
arrinta horta waa arrin oo aad iyo aad u qallafsan baa meesha ka dhacday 36 saacadood oo ugu dambeysay dad 3,000 oo qof ku dhowba meesha yimid 2,806 qof bay hadda sheegayaan, laakiin waa iska soo daba dhacahayaan. 30 doomoodna waa ku kala socdeen. dad aad iyo aad u fara badan bay ahaayeen, welina waa iska soo qulqulhayaan. laakiin hadda xoogaa musiibada ugu weyn sidaad u maqashayba waxay ka dhacday ilmaha cunuga yariiska oo 1 sano iyo barka jira oo badda maaragtay intuu dhintay lagu tuuray, iyo qof kale oo nin qaangaar ahoo 20 iyo dhowr jir ahoo eboriyaan asna ahoo Ivory Coast ka yimid oo isaguna intuu dhintay sababtuu u dhintay ma naqaani, asagana meydkiisii badda lagu tuuray layiri. iyo qof kale oo dumar oo iyadana markay timid foolatay 9 bilood bay ku jirtay inta maaragtay ilmo meyda dhashay iyadana diyaarad lagula cararayo la geeyey bitaal. adoo dhibaatooyin fara badan waa iska jiraan, laakiin dad badanna waa lasoo badbaadiyey oo dhalaa dadaan qaangaarahayna ku jiraan, dumar iyo rag bana isugu jira. of course dad badan oo la seexiyey baa jira oo isbitaal oo korkooda biyuhu ama ka dhammaadeen ama dad oo intay maaragtay naxeen oo argagax oo cudur dhimirka iyo qalbiga ah, iyo qaar kale oo xanuunsaday iyo waxaas isugu jiraan. marka qaarar badan baa isbitaalla la seexiyey, intoodii badnayd laakiin central la geeyey. Shukriye, waan gartay. marka halkee ayay kasoo sharacdeen doomahan ku qarqamay xeebaha Talyaaniga? abo doomahan say u badan yihiin Tunisia ka yimaadeen, say hadda u badan yihiin. laakiin dadka meesha ka yimid waa dad oo Mali, Ivory Coast, Sudan, Nigeria, meel kasuu ka yimid oo Afrikaankaas kala. laakiin waxa Eritrea iyo Soomaaliya iyo Ethiopia kama aanan akhrin wadamadii meesha ku qoran. marka maxaa la leeyahay sababta ay doomahan ugu degeen xeebta jasiiradda Lampedusa? waxay ugu degeen abo waa magangelyo raadis weeyaan. qaar waa loo gurmaday oo ururadii samafalka u gurmaday, qaar badanna maxay dhaheen Capitaneria Porto kuwaan la yiraahdo Marina Militare Talyaaniga ah u gurmaday, qaar from taxi kuwaan la yiraahdo EU-ga iyo isugu jira iyo baa ayaguna u gurmaday. gurmadyo badan baa la sameeyey, laakiin dadkan waa dad oo muhaajiriin ah oo wadamadaas kala fog ka yimid, haddana intuu Libya iyo soo maray haddana Tunisia iyo lagu xareeyey oo halkaas magafayaashan ay ku kaydsadaan oo ku haystaan. marka waxay soo daynayaan marka iyagu hawadu fiican tahay oo ay baddu fiican tahay oo qoraxa jirto. hadda ayaamahan Talyaaniga hawadiisu waaba xumayd oo dabayl adag iyo roobab iyo waa ka daahayeen, runtii badduna waa kacsanay. saasay tahay Tunisia waa u dhowdahay Talyaaniga, Lampedusa wax dheer uma jiro, saasay marka halkaas ay ugu soo miidaadiyeen. waxaa la leeyahay marka sababta waxay noqon kartaa dabaylaha xoogan ama cimilada oo xun ee Talyaaniga ka jirto. cimilada xun iyo Talyaaniga ka jirta iyo dabayshan oo jirta iyo dadku awalba markii hore dayacnaa oo dad la qafaashay oo meel lagu haysto weeye, ma dad xor oo waxay rabaan samaynka. marka mas-uuliyiinta Talyaaniga ma ka hadleen dhacdadan ugu dambeysay? aad iyo aad debate adag baa Talyaaniga ka jira, la isku haystaa ilaa EU-ga la isku haystaa. dawladda hadda joogta waa midii tiri u dhaaratay maraakiibta albaabada isugu dhufanayna cid noo soo gelaysaasay electionka ugu guulaysteen. haddana waxaa la tusaya statistikadii iyo daatooyinkii iyo wixii ayaga inay sii 3 jibaaranmeen muhaajiriintii sanadkan timid markii loo fiiriyo kuwii sanadkii hore yimid oo markay iyagu mucaaradka ahaayeen oo ay ka cabanayeen oo dhahayeen muhaajiriin badan baa timaada. way ku qasban tahay sharciga waddankaana dhigahaya ilaahu midig baatiriya ma waxa rabtay sharciga wadamadan ma ogola inuu Talyaaniga qof oo badda ku dhibaataysan aan loo gurman. marka iyagii dhibaata haysata oo iyagii kuwii dhahayay cidna ma soo galaysa iyo hadda dadkii 3 jibaar. kuwii kale oo bidixda ahay oo awalna waxay leeyihiin waa qaldantiina qaabkana u wajiinine waxa Mare Nostrum la dhihi jiray horay u jiray oo maraakiib ay dawladda Talyaaniga lahayd xeebaha Mediterranean-ka ku xirnaan jiro oo weynaayo dadka soo aruurin jiray kii lagu noqdo oo saas dadka loo soo noqdo. marka arrintu aad bay walaaceedu u badan yihiin. taasi waxay ahayd Shukri Siciid oo ah wariye degan dalka Talyaaniga oo qadka telefoonka Cabdulqaadir Yuusuf Cali ugu waramaysay. welina halka aad nagala socotaan waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
waa hagaag dhegeystayaal qodobo kale ayaa inoo soo socda bbcsomali.com-na waad nagala socon kartaan iyo barta facebooka ee BBC Somali News oo si toos ah haatan aad nooga dhageysanaysaan. markaana gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa lagu soo gabagabeeyay tartan quraan oo ay ka qayb galeen dhowr boqol oo arday ah kuwaas oo ka kala yimid meelo kala duwan oo markaasi ay ugu badan yihiin ardada halkaasi ka qayb gashay inay ka yimaadeen waqooyiga Amerika waxaana lagu bixinayaa tartankaasi abaalmarino qaali ah. warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Minneapolis ee gobolkaasi wariyasiyaad Saciid Saalax. waxa uu ahaa tartan u dhaxeeyey 500 oo arday oo ku tartamayay muddo isbuuca quraanka kariimka ah jusaskiisa kala duwan. waxa ay ka kala yimaadeen wadamada waqooyiga Amerika ku yaal oo u badan yahay Mareykanka oo 24 gobol ah. qaarkoodna waxay tartanka qaybta qiraa'aadka quraanka uga soo qayb galeen qadka Zoom-ka ama fogaan aragga iyagoo kala jooga dunida dacaladiisa kala duwan. waa tartan sanadlaa oo dhalinta waqooyiga Amerika degan oo u badan Soomaalidu ay sanad kasta xilligan oo kale ay isugu yimaadaan. ardaydii muddo hore juska koowaad tartanka ku galeysay ayaa hadda ka soo muuqda jusaska sare ee tartankan. Sheekh Cabdiraxmaan Cabdi Yuusuf waxa uu ka mid yahay waalidiinta muddo dheer ilmahoodu ay ka qayb galayeen tartankan. waxa ay sanadkan uga duwan tahay isaga oo ka soo safray ilaa iyo dalka Kenya si ay ilmihiisu tartanka uga qayb galaan. waxa aanan weydiiyey waxa ku kalifay wadada dheer ee safarka ah ee Kenya ilaa iyo Minnesota ee keentay xilliga kan. waasaas aad sheegtay siyaad carruurta wiilkayga tartanka ayuu ka qayb galayaa sanadkan ayuu ka qayb galay horeyna ilaa maalinka jus camal la bilaabay ilaa hadda uu ka soo qayb galayay. sanadkan waxaa gooni ka ah ama waxoogaa soo jiidasho leh inaan uga nimid Nairobi annagoo guuray inaan halkaa uga soo celiyay inuu musaabaqada ka qayb galo. muhiimadduna waxay tahay kitaabka ilaahay ee la kor loo qaadayo iyo annagoo hadda faamil noqonnay musaabaqadii iyo la qabsashigeedii iyo la socodkeedii maalinka la bilaabay Imaam Shaatibiya anoon ilmo lahayn ilmaha masaajidkan keeni jiray haddana ilmahayga waa ku soo darmaday alxamdulillaah. marka muhiimadda quraanku uu leeyahay iyo weynanka quraanku uu leeyahay dartii baan uga nimid meeshaas inaan Nairobi uga soo safarro oon ka qayb galno musaabaqada. Cabdullaahi Cabdiraxmaan safarka Nairobi uu soo galay ma aha mid uu ku qasaaray maantana waxa uu ka mid ahaa guulaystayaasha tartankan. waxaanan weydiiyey Cabdiraxmaan sida uu u arko guusha ay gaareen. alxamdulillaah marka hore Ilaahay ma iskale subxaanahu wa tacaala. marka labaad wax haddii aad ku dadaasho natiijadii laga rabay goolku ahaa inaad hesho waa waxaad u socotay weeye. waxaad socotay haddaad xaqiijisana dee waa farxaddaadii iyo waxaad doonayso hesho weeye. marka aad baan ugu faraxsanahay wiilkayga Cabdullaahi maanta inuu ka mid noqday da'yarta ku dhalatay Maraykan kuna guulaysatay kitaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka farxad aad aan dareemaynaa maasha Allah. gabagabadii tartanka oo daqiiqado ka hor soo gabagaboobay ayaan waxaan la kulmay mid ka mid ah howlwadeennada Faysal Camudi oo aan weydiiyey sida tartanka sanadkan loogu kala guulaystay kaalimaha hore wuxuuna iigu jawaabay sida tan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله كالنتا كواد صدن كجوس بويسكا أو رجع وحكو جولستي عمران دكا أكو جولستي أو كسو جيدو عدان كسو جيدو ما شاء الله مركو حلينا congratulations to عمران دكا. also قبلها وحكو جولستي كالنتا كواد صدن كجوس قبل له يقان مقعدي هي أسرة أيضا وحلي هي congratulations إن شاء الله تعالى كلهم ومباركون قفل بو كسو قيب قالنا وفائز إن شاء الله تعالى. وقرتي معلم فيصل وحقاد لوغو صعبتمي انتي aan hoolkan ku sugnayn wiil lagu magacaabo Cabdiraxmaan Gonzales oo taariikhdiisii laga sheekeeyay oo ku guuleystay 10 jus. bal aniga iyo dhageystayaasha BBC da Cabdiraxmaan Gonzales taariikhdii laga sheegay maxay ahayd?
wiilka taariikhda laga sheegay waxa waaye familkii in ay wili soo islaamin xataa sheekha oo sheekh jamaala u duceeyay wuxuu leeyahay asigoo dhahayo ilaahay waxa u baryaynaa familka wiilka inuu ku soo hadeeyo diinta islaamka marka waa dareemi kartaan cunug familkiisa islaam ahayn wamaca dalika qur'aanka ku dadaalayo bal dadaal inuu dhaafay inuu ku guuleysto kaalinta koowaad waa wax aad iyo aad weyn waxaan leenahay congratulations to wiilka biidn illahi tacaala codkaasna wuxuu ugu dambeeyey warbixintii siyaad siciid saalax uu ka soo diray gobolka Minnesota markaana in ka badan 7 ayaa laga joogaa tan iyo markii militarigu ay la wareegeen awoodda dalka Niger dadka ku sugan magaalada caasimadda u ah dalkaasi Niamey ayaa waxay ku waramayaan in xasiloonida nolol maalmeedku aanay weli adkayn tan iyo intii uu dhacay afgambiga military waxaana la wareegista ciidanka talada dalkaasi ay u muuqataa mid durba abuurtay caqabado dhaqaale oo la xiriira qiimaha cuntada iyo korontada oo meelaha qaar go'an Faadumo Macalin Abukar ayaa warbixintan soo jeedinaysa hadda waxaan joogaa Maraadi laakiin waxaan u naqaanaa Maraade waxay qiyaastii 50 kiiloomitir u jirtaa suuqdinta dalka Nigeria kani waa Saadisu Sani gudoomiyaha dawladda hoose Maraadi oo ah magaalo dhacda dhanka koonfureed ee dalka Niger markii aan ula hadalnay mas'uulkani waxa uu ku jira gaarigiisa oo isku dayay inuu telefoonkiisa dabeeyo maadaama uu ka sii nuxuusayay dabka korontadu waxa ay maqnayd in ka badan 24 saacadood dalka Nigeria ayaa dhawaan jirta korontadii ay siin jirta dalka Niger ee dariskeeda ah kadib afgambigii dhicisoobay talaabadan ayaa kisay ku dhawaad 60% korontadii uu heli jiray dalkaasi waa markii ugu horeysay oo koronto la'aan ay dhacdo inta badan magaaladan iyadoo oo durba korontadu ay noqotay caqabada ugu weyn ee soo wajahda magaalada taasoo saameyn weyn ku yeelatay ganacsiga iyo xitaa nolosha dadka oo dhan intaasoo dhan ma aha Sani waxa uu sheegay in qiimaha cuntooyinka asaasiga ah ay kor u kaceen Mustafa Baka waxa uu ku nool yahay caasimadda Niger ee Niamey waxa uu ka ganacsadaa goob lagu iibiyo cuntada kala duwan waxa uu dareemayaa in qiimaha quutul daruuriga uu sare u kac ku yimid balse uu ka walwal qabo in sare u kac kale oo ka sii daran uu soo food leeyahay hadda aad ayay xilli hore u tahay in la odoroso waxa dhabta ah ee dhici doono laakiin 10 maalmood gudahood waxaan aaminsanahay haddii ay jirto wax soo saar la'aan qiimuhu wuu labalaami karaa sababtoo ah waxaan dareensanahay inaysan jiri doonin cunto kale oo soo gaarta dalkani 2 toddobaad gudahood Mustafa waxa uu soo dejiyaa oo uu markaasi qaybiyaa alaabo sida casiirka buskudka shukulaatada baastada bariiska saliidda caanaha laga keeno wadamada dariska ah waxa uu sheegay in helista lacagta cadaanka ah ay noqotay dhibaato weyn oo ay sii urin karto dhibaato dhaqaale iyo weliba mid badeecadeedba bangiga dhexe ayaa hadda dejiyay koonto si uu u xadido lacagaha lagala baxo wax ka badan $500 qiyaastii 400 ilaa iyo $600 oo laga helayo bangiyada maxalliga ah marka sidaad qiyaasi karto waxay caqabad ku tahay qorsheynta ganacsi kasta ee sameynta wareejinta caalamiga ah ee $100 ilaa iyo $500 $500 waa wax aad u yar hadda lacagtu dalka kama bixi karto si cuntada dibadda dalka loogu soo waarido kuwani waa dhawaqa dibadbaxayaal isugu soo baxay Niamey si ay u muujiyaan inay ka soo horjeedaan cunaqabataynta adag ee dalka Niger ay ku soo rogeen ururka dhaqaalaha ee ku bahoobeen dalalka dhaca galbeedka qaaradda Afrika ee loo yaqaano ECOWAS dibadbaxayaashu waxay sheegeen in cunaqabatayntu ay tahay mid sharci darro ah oo ka baxsan bini'aadanimada waxaana taasi culays ku keeni kartaa qoysaska danyarta ah Ismaaciil Axmedu oo 30 jir ah waxa uu ku nool yahay Niamey isaga iyo xaaskiisa iyo 2 caruur ah oo ay isu dhaleen waxa uu sameeyaa oo iibiyaa dahabka tanina waa isha kaliya ee wax ka soo galaan qoyskiisa
waxa uu sheegay in ganacsiga uu gaabis ahaa tan iyo markii ay ciidanka talada dalkani la wareegeen. xitaa macaamiil oo keliya inooma imaan, waxaa jira kuwo kale oo aniga oo kale ah oo iyaguna xiray dukaamadii ay ku iibinayeen dahabka. haddii ay sidan ku sii socoto xaaladdu, mustaqbalkayga dhibaato weyn ayaa ku soo wajahan. sida waddanku ula daalaadhacayo xasilooni darro siyaasadeed iyo mid dhaqaale, waa maxay aragtida fog ee dhaqaalaha Niger? Niger waa dal aan nabad ahayn. wuxuu inta badan dalkani ku tiirsan yahay dalalka Benin, Nigeria iyo Cameroon si ay u soo marsadaan alaabta ay dibadda ka keenaan. Professor Bolaji Akintiri oo agaasimihii hore ee Maxadka Arrimaha Caalamiga ah ee Nigeria ayaa sheegay in saameynta inqilaabku ay sare u qaadi karto heerka saboolnimada ee dalka Niger. haddii tusaale ahaan ururka ECOWAS oo ay ku jirto Nigeria ay dagaal ku ekeeyaan dalka Niger ayna ku dhawaaqaan inay xireen xuduudaha dhulka, marka waxaa dhacaysa in dalka Niger ay soo wajihi doonaan caqabado aysan awoodi karin inay iska difaacaan. warbixintaasi waxaa soo jeedinaysay Faadimo Macalin Abuukar. markaana wararka ciyaaraha haddii aynu eegno, magaalada Muqdisho waxaa ka socda koobka General Daawud oo kulamana la ciyaaro kuwana markaasi ay harsan yihiin, sida uu sheegayo Maxamed Cumar Baaka oo ah khabiir ka faallooda ciyaaraha. koobka kubadda cagta ee General Daawud oo ah koobka Soomaaliya ugu faca weyn oo sanadku markuu 1927 la soo bilaabay. ciyaarahaasi waa muddo haatan laga joogo 51 sano ayaa weli laga ciyaaraa magaalada Muqdisho. sanadkan 2023 meel xasaasi ayuu soo gaaray. jimcihii aynu soo dhaafanay ciyaar aad u kulleed bay waxay dhex mareen kooxaha ugu faca weyn kubadda cagta Soomaaliya waa kooxda LLBB, Kenya iyo kooxda Horseed. taageerayaal fara badan baa garoonka soo buuxiyay. natiijo aan la filin ayaana ciyaartaas ka soo baxday 3 gool iyo 1 waxay guush ku raacday kooxda Horseed oo sidaas u soo gudubtay wareegga 8 dhamaadka. Janyo sanadkan koobka General Daawud way ka hareen oo waa laga reebay. shalay oo axad ahaydna waxaa garoonka weyn Stadium Muqdisho isku fara saaray kooxaha dekadaha iyo kooxda madbacada qaranka. gool fara badan baa la iska dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Anwar oo xagga weerarka kooxda dekadaha ugu ciyaara oo number 16 ayaa wuxuu ahaa xidiga garoonka ka dhex muuqday. 5 gool iyo 2 waxay guusha ku raacday kooxda dekadaha oo sidaas u soo gudbay wareegga 8 dhamaadka. ilaa hadda kooxaha wareegga 8 dhamaadka u soo gudbay waxay kala yihiin kooxaha Horseed, Muqdisho Club, kooxda Elman, Hagen, Jazeera, dekadaha oo shalay soo gudbay. galabta oo isniin ana waxaa midkood la sugayaa waa gaadiidka isxaafi kulanka dhex mari doona oo kooxdii soo baxday 7 ay ku noqonayso. biri oo talaadahana raadsan iyo waxool kooxdii soo gudbaa 8 ay ku noqonayaan oo wareegga dhamaadka sidaas ayuu ku soo buuxsami doona. toddobaadka xiga ayaana wareegga dhamaadka uu bilaaban doona. koobkan General Daawud waxaa daafacanaya kooxda Horseed. qiyaas buuxdan laga bixin karo sanadkan 2023 kooxda qaadan doonta. Maxamed Cumar Baakaay, Muqdisho. wararka kale ee ciyaaraha Arsenal ayaa xalay rigooro uga badisay 4-1 ah kooxda Man City koobka markaasi Community Shield. haddaba ciyaarihiina inta aynu ku gudubnay idaacadda waa naga intaa nabadgelyo.